ديك بو كحرابي يا صل ديك جيسي ودي اللي جوراي بو كحرابي كمهربي هو هذه يا بيل بيبي تتقبلوا رجعوا بيبي كويا يلا هل كان عندي كذا ترى waxaanu maanta halkan idinka cadaynaynaa qadiyadayada iyo mabda'ayaga iyo deegaanadayada amniga deegaankayaga inaanan cidna magan uga noqon doonin cid kasta oo soo faragelisa deegaanadayada ama khalkhal amni ka wada inaanu gacan bira kaga hortagi doono Allahu akbar sidii abwaanku sheegay maanta waxaanu halkan tababarka ugu soo xidhnay oo juhdi dheer iyo dadaal dheer kadib oo runtii aanu waqti badan gelinay xilliyo badan soo marnay waxaanu maanta tababarkii halkan dugsiga jenaraal farxaan maxashuwaan ugu soo xidhnay dacfadii saddexaad ee ciidamada dib u xoreynta gobolka sool sanaag iyo cayn runtii waxaan mahad ballaaran u celinayaa dhammaan hablaha sharafta leh ee nagala soo qayb galay munaasabaddan saraakiisha guddoomiyaha iyo dhammaan dadka deegaanka ee ka soo qayb galay munaasabaddan runtii markaan waxaan bilaabanay waa nalaga yaabanaay waxa la islahaa suurtoobi mayso sideeda dadku hadduu go'aan ku gaaro inuu wax qabsado isagaa dawlad isu noqda dadku hadduu isla kaashado oo wax isla qabto wax walba wuu samayn karaa qofka bini aadanka ah hadduu la yimaado hami iyo dadaal iyo fikir meel walba wuu gaari karaa waxaan aad ugu hambalyaynayaa ururka dhiirane oo aan maanta halkan tababarka ugu soo xidhanno oo runtii juhdi iyo dadaal dheer saraakiisha iyo macallimiinta iyo tababarayaasha oo noogu soo dulqaatay duruufo aad u adag aad baan u mahadinaya ugu bogaadinaya gobonnimada waxaa la dhahaa waa wax adduunka waxa ugu qaalisan waa gobonnimo qofku wax naftiisa uu kaga gamco intuu naftiisa u huro uu kaga gamco oo u qabanta naftiisa waa gobonnimo iyo xorriyad waxaanu maanta halkan idinka cadaynaynaa qadiyadayada iyo mabda'ayaga iyo deegaanadayada amniga deegaankayaga inaanan cidna magan uga noqon doonin cid kasta oo soo faragelisa deegaanadayada ama khalkhal amni ka wada inaanu gacan bira kaga hortagi doono waxyaabaha nagu kalifay inaanu iskaa wax u qabso aanu ku shaqayno markaanu aragnay dhiiggayagii maalayacni ku daadanaya oo maalin walba ama laba beelood oo isdilayo wax isku dilayaan aan la garanayn ama wax dilay la garan waayo gobolka yagii haween iyo maalin inta qof lagu dilo wax dilay la garan waayo waxaan go'aan ku qaadanay inaanan dib dambe u daawan dhiigga shacabka iyagoo daadanaya fikirrada guracan oo shisheeyaha iyo cadowgu inoo soo jiiday oo kala goynta iyo burburinta ummadda Soomaaliyeed inaanu ka hortagno baanu ballan ku hadday arki jirteen kuwa qadiyadoodu ay lacag tahay oo la gorgorin karo waxaan ballan idin qaadanaa inaanan ka leexan wadada saxda ee aan ummadda ku badbaadinayno waxaan u hambalyeeyaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan intii madasha ka soo qayb gashay bahda saxaafadda dhammaan saraakiisha ciidanka iyo macallimiinta hablaheena sharafta oo runtii meeshaanu ka dhiman weynaya iyo dhammaan bulshada rayidka oo deegaanka daafihiisa kala duwan nooga soo baxday
haddaba inteennan haddaan wada hadallo hablow maxaad u timaadeen ma riwaayad iyo sacabtun baa u timaadeen mise wax dhabaad u timaadeenoo danu ad waxa dhabtii waa maxay haddabaan isweydiinay waxa dhabtii waxa weeye jiilka dhalan doona waxay dhali doonaan kan maa haddeer jira ee dhulbaanta lagu sheegay dhulbaanta wuu dhammaaday wuunse dhalanaya marna wuu dhalanaya kaasana iidoor ka xorayn doona dalka intiinnan iyo qolyaha koofiyadaha sita iyo riwaayadda garowga taal midna ku xoroobi maayo dhiig buu ku xoroobayaa sol dhiig geesii u dhintay oo la gowracay buu ku xoroobay kuma xoroobayo riwaayada iyo been baa sitan gabdhahu raggow been sitan kuwa yaryala halkan cidi kama joogto garow in yar oo silica oo aanu ku qaadano caadayn $7 baan ku joognaa dad jalas kama taqaanin waa xaasidiinta in jalasya waa xaasidiin aanu ku joognaa garow oo mateerteen aanu kaga qaadanaa caantayn silica aanu kaga qaadano ku qabno dhib iyo go'ad waa kuwan ku la seeri waa kan ka mid baa sarkaal buu sheeganay ma ihin dad xora oo meel sharaf ku leh hadii la yiraahdo waxba idin joogo waa been dhulbaanta uma gudboosanay inuu dhiigga qubno ilaa nibadna ma gudboosan ilaa hadda ka habeenkii farxaan iyo faysal ay galeen jibaayod ee la soo dhaaway anigu iga ilaalinay farxan ana gaarigayga iyo naagteeda la soo diray qaada waa odayga wuxuu beelay inaan cunayno luways waral duubay joogno haddaad doonaysaan inaynu xorayno dhulkeennii waa inaan ku talagalnaa inaan dhimanno sidii farxan u dhintayna u dhimo gosi ilaahay ma idinku ogyahay aad iyo aad baan guud ahaan idinku mahad celinayaa tani waxay muujinaysaa sida aad diyaar ugu tihiin makhraatigii haddeer dhaartii uu idin dhaarinayey sanankani dadkaan isiraado soo ciil u dhinteen buu ka mid yahay ma aha waxa kan aad idinka muuqda iyo muuqaalkani waxaannu makhraati u furaynaa inuu ciil yahay dhaartu haddayna dhaarinayo inaynu dhibanno diyaar ma u nahay inaad diyaar u tihiin ragow dumar waxaa muujinaysaa saacadaha aad qorraxda taagan tihiin baa muujinaysaa sidaa darteed aad iyo aad baan idinka mahad celinaya halkan waxaannu siday saraakiishii horeba u sheegtay aanu ku soo xidhnay difcaddii saddexaad dugsiga jenaraal farxaan maxashwaan ururkiisa dhiirane difcaddiisii saddexaad baannu 6 bilood kadib tabarbar dheer oo aad u xadaafiira oo dagaalka iyo tabaha noocyadeeda kala duwan ciidankan la baray habeenow maalin ugu soo xidhnay maanta oo ay bisha 11aad kow tahay iyadoona loo furay bishii 5aad kowdeedii 6 bilood oo jagaanjagaya oo habeenow maalina baannu dufcadda saddexaad ee dhiirane halkan ugu soo xidhnay sidii ragga horeba u sheegeen ma aha ugumana horrayso ugumana dambayso tusaale yar raggani waxay u tababaranayeen wakhtiga intaa leh waxay xadaafiirtaas iyaga iyo mas-uuliyiintoodu dhibka aadka u faraha badan ay u marayeen muxuu yahay aanin yar idinka sug waxa uu yahay waxay u abuuran yihiin jamhadda dib u xoraynta SSC ciidan siyaasad kale u abuuran maaha waxay ka kooban yihiin sool iyo sanaag iyo cayn ujeedka ay u abuuran yihiinna waxay tahay inay xoreeyaan deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn kuna soo celiyaan shacabka
taladoodii ay gacanta dib ugu soo celiyaan oo ay iyagu masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan taasay u abuuran yihiin ayna u tababaranayeen qodobka labaad waxaa weelisa waa maasanta waxaa weelisa gabdhaha sharafta leh iyo hooyooyinka halkaa taagan qofka aadanahay waxa uu ka arado waxa ugu xun sharafta waxay inamadani u tababaran yihiin oo u taagan yihiin oo aan anigu koow ka ahay oo ay iyagu dhaar isku marsadeen annaan ku hoggaaminayaa gabadhaa sharafteeda in la soo celiyo lacag ma joogto waxay joogtaa naftooda gabdhaw haddaad aragteen kuwa cadowga soo hagaya oo maxay ahayd idin dhibaya oo idinku qabiila hadda waxaad hor taagantihiin oo maanta aad nasiib u yeelateen kuwa ilaahay hortii isu maray inay naftooda ku soo iibiyaan aradka nafteena dharkiina ay u baahan tahay sharaftiina inay soo celiyaan kuwa ilaahay hortii isku dhaarsaday una taagan baad maanta hor taagantihiin hadda kuwana qalbigiinu waa ku qaboobay yaa kuwana qalbigiinu waa ku qaboobay war maxaynu ku ballansannahay daraawiishay gabadha maxaynu uga ballanaa allahu akbar allahu akbar sidii abwaanku sheegayey abwaan ka jawaabnay gabaygaagii ahaa war hubka ma qaadanaa mise hay tixda rodhigo ya yeenaynu gaabta duulayno war abwaan kaaga jawaabnay galabtaanu duulaynaa waxba inaan cadowga halkan waan jabaa waxba macna ma sameynayso horena waanu isu naqaanay hadeerna way arki doonaan waxaanu la nimaadno iyaga intaas aan kaga gudbay